بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ولا الله ملك سو نقل سعطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ku soo gudbin doonaa insha Allah taala qiso mucjisa taasoo ka hadlaysa gabar aad u qurux badneed laakiin wax guursada la waayay sababtuna ay ahayd qadarta Rabbi ka soo in meel sixir loogu duugay. qisadan waxa ka sheekeynaya gabadha aabaheed. gabadhan waxay gabar aad u qurux badan, aadaab leh, asturan, gurigeeda joogto. nin walbo damcamar walbana oo is yiraahdo gabadha looga sheekeeyaahina wuxuu damcayaa inuu bala doonto oo gabadha guursado. laakiin markii uu imaado reerku imaado oo gabadhii soo doonto waxar kadib ninkii waa carar haddana waxaa loo malay wax iska caadi ah, yani wax saa usii buurano waaweyn lagama dhigin baa laga sii gudbay. laakiin markii hooyadii aabe arkeen dadkan gabadhan soo doonan haddana ee cararay ay sii dhaafeen 30 qof ay ku dhow yihiin bay is yiraahdeen meeshan waxbaa say ka ahee xaalkuma qumana. iyadoo arrintaasi taagan tahay oo aabihii yaaban yahay oo hooyadii yaaban tahay gabadhii naftirkeeda xataa ee la yaaban tahay waxa socdo waa la soo doonanayaa, ninkan baa ku soo doonanaya haddana waa cararayaa ninkii sababtay garan weyse. iyadoo halkaas xaal marayo baa waxaa soo doontay wiil ilmaadeeriyiin. wiilkii markuu imaaday oo aabbihi imaaday oo gabadhii ka dalbaday in loo guuriyo dee waxar kadib hadda ninkii waa cararay. aabbiha gudawareedha kaale dee soo adeer kuumiyahaa dee gabadhan inaad guursatahay maxaa ka hortaagan? markaasuu runtaan kuu sheegayaa aniga markaan u galo markaan arkay fiiriyaba ruux aadanaa ma arkin, wax kale un baan arkaan ka argagaxay. ninkiina iska baxay. aabbihi marka aad buu yaabay. asigii hooyadii iyo gabadhii baa wada hadlo waxaa lihi bal arrintaasaa yarkii iisoo sheegee maxaan ka sameynaa? ma gabadha quraansaar baa loo wadaa? ma meel yani quraansaarka laga raadiyay maangeena seen wax yeelnaa? markaasee markii dambe waxay ra'yi isku waafaqeen inay cawada marka cishaha tukadaan ee allabari u fadhiistaan. aabbaha iyo hooyada waxay leeyihiin ilaa 6 saac wixii ka horreeya in ayaga ay duceeyaan. yani rabbi toogaa la galaya, ilaahay baa loo gargaar la weydiisanaya oo dhankiisa loo cararaya. 6 saac markii la gaarana gabadhaa la soo kicinaya ayada haddana bedelayso. habeenkii dhan baa noogu dhammaaday dhehen annagoo gacmeena kor u taagan ilaahay baryayno. ilaahay ma aha midna qadin doona. way fadhiisteen waxaana la bilaabay in la akriyo laa xawla walaa quwata illaa billah, laa xawla walaa quwata illaa billah alcali alcadiim, laa xawla walaa quwata illaa billah alcali alcadiim. saasay wardi u ahayd. aabbihii markuu bilaabay hooyadiina ay bilaabeen oo meel dhexe marayaan baa aabbihii hurdaa qabato welulmooday. markaasaa maraam wuxuu ku arkay oo lagu yidhi gabadhaadii waa la sixray, heblaha yaana sixirtay, wuxuuna ugu duugan yahay meel guriga u dhow saan isaan ah. aabbihii hurdadii buu ka soo kacay asigoo argagaxsan oo uu soo baxay meeshii buu tegey. waaba runba wixii meesha yaallaba waaba wax laisku aadaadiyo oo sixir ah. wixii uu kala furay. subxaan allah, muddo aama ka soo wareeginba isbuuc ilaahay fadligiisa gabadhii si durbaa waa la soo doontay waana la aroosay. muhiimadda marka waxaa waaye qadartii wax walba ilaahay baa gacantu ka hayo maamulo, laakiin dhib walboona soo qaab ilaahay ama kurbo walboo dareenno inaanu ilaahay wala cararno subxaanahu watacaala ee aanu meelaha kula warwareegsanin. intaan dib u kulmi doono insha allahu tacaala. hada wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi